xalqadda afaraad waxay ku bilaabanaysaa habeenkii toogashada saqafka sare. qofka toogashada geystay keliya hal qof may ahayn ee waxay ahaayeen laba qof. mid wuxuu ahaa Cora Sahon, kan kalena wuxuu ahaa dilaagii dhabta ahaa ee qoyska Kim Jong laayay. dilaagu had iyo jeer wuxuu u arkayay Kim Jong inuu yahay qofka uu gaarsanayo. markii uu arkay qof kale oo isna raba inuu Kim Jong dilo, dilaagii wuxuu dareemay wax la yaab leh. markaas ayuu ogaaday aqoonsiga Qoraaga. dilaagu wuxuu ogaaday in dunida buugu ay tahay male awaal xataa ka hor intaanu Kim Jong ogaanin. maadaama masiirka jilayaasha buuga uu ku xirnaa qalinka Qoraaga, dilaagu wuxuu heshiis la galay Qoraaga. dilaagu ma lahayn garaad ka yar kan Kim Jong. wuxuu ogolaaday in Qoraagu uu ku laabto dunida dhabta ah, laakiin Qoraagu waa inuu fuliyo laba shuruudood: inuu siiyo weji uu ku dhex socdo, iyo inuu u ogolaado inuu dilo Kim Jong si uu isagu u noqdo jilaaga koowaad ee buuga. Qoraagu markiiba wuu ogolaaday, laakiin markii uu ku laabtay dunida dhabta ah, wuu ka baxay balantii. keliya intaas ma ahayn ee wuxuu Kim Jong la samaystay qorshe kale oo dilaaga lagu dilaayo. markii uu dilaagu arrintaas ogaaday, aad ayuu u xanaaqay, wuxuuna si toos ah ula wareegay wejigii Qoraaga. Qoraagu wuxuu qariyay inuu la kulmay dilaaga, taas ayaana keentay in qorshayaashoodii oo dhan ay fashilmaan. keliya haddii dilaaga la dilo ayuu Qoraagu wejigiisii dib u heli karaa. Kim Jong wuxuu lumiyey maqaamkiisii jilaaga koowaad, mana uusan ogeyn xilliga uu dhumaayo. markaasuu go'aansaday inuu raaco qorshihiisii hore, inuu soo qabto dilaaga dhabta ah, uuna u daayo xildhibaanadu inay dilaan. laakiin dhammaadka sheekada in yar ayaa laga bedeli doonaa. wuxuu rabay inuu bedelo dhammaadkii uu Qoraagu sawiray. muuqaalka ugu dambeeya wuxuu rabay inuu noqdo Kim Jong iyo Yanji oo isguursanaya oo ku nool nolol farxad leh, taas oo u noqon lahayd dhammaadka ugu habboon ee buuga. xilligan mas'uuliyadda badbaadinta aabaha Yanji waxay dusha ka saarnayd Kim Jong. Qoraagu ma ahayn qof sidaas uu awood badan, mana samayn wax kasta oo dunidaas ku jira, taasi maba suurtoobayn. wuxuu maamuli karay oo keliya dhowr jilaa oo uu isagu gacantiisa ku sawiray. taas beddelkeeda dadka caadiga ah ee waddada maraya waxay ahaayeen kuwa xur ah. sidaas darteed Kim Jong wuxuu gaaray natiijada ah in dunida buuga iyo dunida dhabta ah ay yihiin laba adduun oo madax bannaan. buugga Qoraaguna uu yahay uun buundo isku xirta labadaas adduun. laakiin farqi ayaa jiray. wax kasta oo dunida buuga ku jira waxay ku salaysnaayeen dunida dhabta ah. tusaale ahaan, dhismooyinka ku jira buugga waxay u ekaayeen dhismooyinka dhabta ah ee jira. Kim Jong wuxuu ka codsaday ardayga Qoraaga inuu u raadiyo cinwaanka dilaaga. ardaygii wuxuu mas'uul ka ahaa sawiridda muuqaalada iyo asalka buugga, laakiin ka hor intaanu sawirin cinwaanka gaarka ah, dilaaga ayaa mar hore la wareegay Qoraaga. si kasta ha ahaatee, ardaygii wuxuu weli haayay sawiradii dhabta ahaa ee guriga ee loo isticmaalay tixraaca sawirka. nambarka 8115 ee ku qornaa bannaanka guriga ma lahayn wax muhiimad gaar ah. kadib markii uu wax kasta fahmay, Kim Jong wuxuu bilaabay inuu fuliyo qorshihiisa. wuxuu fariin u diray Yanji isagoo u sheegay inay shido aaladda tabletka 10 daqiiqo kadib si ay u furto marinka isku xira labada adduun. markii uu dhammaystiro hawsha, wuxuu awoodi lahaa inuu ku laabto dunida dhabta ah. daqiiqadii uu Kim Jong bilaabay inuu isaga is u yeero, wuxuu dhab ahaantii soo gaaray qolkii uu dilaagu ku jiray. dilaagii ayaa aad u naxay, wuxuuna isku dayay inuu weeraro Kim Jong. hase yeeshee, maadaama uu dilaagu hadda lahaa jir dhab ah, wuxuu lumiyey awooddii uu meel kasta ugu dhuuman lahaa. kadib jirka dilaagu hadda wuxuu ahaa nin kontomeeyo jir ah. sidee buu uga adkaan karaa nin dhalinyaro ah oo xoog badan sida Kim Jong oo kale ah? dagaalkuma dheerayn, waxaana markiiba dhulka la dhigay dilaagii. Kim Jong wuxuu dilaagii ku xiray fadhiga si uusan u dhaqaaqin. markaas ayuu wacay booliiska isagoo u sheegay inuu helay dilaagii ka dambeeyey dhacdadii telefishanka. kadibna wuxuu ku baxsaday baabuur ay Yanji isaga u sawirtay. laakiin Yanji waxaa weli laga rabay inay sawirto laba muuqaal: inay sawirto meydka Kim Jong oo qurmay si sheekada looga saaro inuu nool yahay, iyo in la keeno sharaxaad ku saabsan dhacdadii rasaasta ee aan caqliga galayn. inkasta oo ay dhammaantood dhibanayaal ay yihiin, haddana Kim Jong ma caddayn karin inuu dembi laan yahay. taa beddelkeeda waxaa lagu eedeeyey dilaannimo. dadweynaha ayaana maalin kasta eedayn jiray, isagoo ku qasbanaaday inuu u dhuunto sidii dooli oo kale. Kim Jong wuxuu ka doorbiday inuu dhimashadiisa matalo. sidan wuxuu kaga dhumaysa xasuusta qof kasta. sidoo kale, sheekadii ku saabsanayd xoghaynta waa laga saarayay si aysan nolosheedu hadda kadib ugu wareegin Kim Jong oo ay u nabad gasho. wax kale oo Yanji ay sawirtay wuxuu ahaa faraantigii ka lumay Kim Jong si ay hadda kadib ugu noolaadaan nolol farxad leh. haddii qorshuhu guulaysto, Kim Jong wuxuu noqon lahaa qof awood sare leh oo u kala gudbi kara labada adduun. laakiin arrimuhu ma fududayn. inkasta oo Kim Jong sheekada dhexdeeda ku dhintay, haddana wuxuu dib u helay sharaftiisii jilaannimo, wuxuuna gaaray hadafkii ahaa qabashada dilaaga. si kasta ha ahaatee, dhacdo lama filaan ah ayaa dhacday. markii uu Kim Jong gaari ku dhaafay hoteelkii ahaa tusaalaha sheekada, wuxuu si lama filaan ah u arkay xoghayntii oo taagan iridda hore. waxa ka sii yaabka badnaa, xoghayntii ayaa aragtay isaga. Kim Jong ayaa markiiba Yanji wacay si uu u xaqiijiyo haddii uu weli ku jiro dunidii buugga, waxayna u sheegtay inuusan ku jirin. jilayaasha buugga loogama yeeri karin dunida dhabta ah. taasi waxay u muuqatay wax aan macquul ahayn. mise malaha Kim Jong ayaa si lama filaan ah jilaaga ugu soo yeeray dunida dhabta ah. Kim Jong waxaa markiiba galay dareen xun. isla markaasna dilaagii ayaa ka baxsaday saldhiggii booliiska, wuxuuna dunida dhabta ah ku dilay askari boolis ah. kadib markii uu xaday baabuur iyo qori, dilaagii wuxuu si toos ah u aaday xafiiskii Qoraaga, wuxuuna mar kale maamulay maskaxdii Qoraaga, isagoo si dabin ah Yanji ugu jiiday dunidii buugga. si uu u joojiyo Kim Jong inuu bedelo qorshaha sheekada, dilaaga ayaa ku qasbay Qoraaga inuu burburiyo aaladda tabletka si aysan u helin waddo ay ku baxsadaan. markii uu Kim Jong soo laabtay, Yanji way maqnayd. cutubka cusub ee buugga ayaa ka dhigay mid naxdin la fadhiistay. dilaagu waa mid dhiig miirad ah oo
aan naxariis lahayn. Wuxuu u jiray oo keliya inuu laayo qoyska Kim Jong. Maadaama ay Yanji hadda xirnayd faraantiga arooska, waxay qayb ka noqotay qoyska Kim Jong, sidaas darteed dilaaga waxa waajib ku ahayd inuu dilo iyada. Wuxuu qabsaday qorigii wuxuuna toogtay Yanji. Kim Jong ma aqbali karin dhammaadkan naxdinta leh. Wuxuu go'aansaday inuu dib ugu laabto dunida buugga si uu u dilo dilaaga. Markii ay labadii cadow ishor istaageen, waxaa ka muuqatay xanaaq waali ah. Labaduba waxay lahaayeen hal hadaf, inay isdilaan. Waxay u soo ordeen sidii inay mindi isku dili rabaan, kadibna waxay bilaabeen toogasho aan kala joogsi lahayn. Midkoodna ma awoodin inuu ka dhuunto xabadaha. Laakiin marka la barbardhigo horyaalka toogashada Olombikada, dilaagu aad buu u hooseeyey. Jirka dilaaga oo dhan ayaa dhaawacyo soo gaareen, ugu dambayntiina halkaas ayuu ku dhintay. Markii uu Kim Jong u cararay bakhaarkii, wuxuu arkay dhibco dhiig ah oo dhulka yaala, laakiin Yanji meelna lagama arkin. Waxaa soo baxday markii ay ereyada la soco soo muuqdeen in Yanji ay dib ugu laabatay dunida dhabta ah. Dad wadada marayayna ay isbitaalka geeyeen. Baaritaankii ugu horreeyay wuxuu muujiyey inay maskaxdeedu dhimatay. Kadib markii dilaagii dhintay, wejigii qoraaga ayaa ugu dambayn dib u soo noqday. Markii uu Saahoon maqlay inay gabadhiisii kooma ku jirto, dhibaatada dhabta ah waxay ahayd in maskaxdiisa ay weli saamayn ku lahayd fikiradii dilaaga. Wuxuu markasta u haystay inuu isagu yahay kan gabadhiisa dilay. Markii uu miyirsaday, Saahoon wuxuu isku dayay inuu dhismaha iska soo tuuro, laakiin Kim Jong ayaa waqtigii ku habboonaa qabtay. Kim Jong ayaa markaas Yanji dib ugu soo celiyey dunida buugga, laakiin waxay dhimatay kadib markii ay mar keliya ay indhaha kala qaaday. Si kasta ha ahaatee, xaalku wuu isbedelay. Inkasta oo aaladii tablet la jajabiyey, haddana waxaa soo baxday in dilaagu uu horay qoraaga ugu amray inuu sawiro aalad labaad oo uu ku qariyo jirka dambe ee baabuurka. Laakiin si kadis ah, kadib markii Kim Jong uu toogtay dilaaga, xildhibaanadii ayaa goobta yimid waxayna burburiyeen cadaymihii ka dhanka ahaa. Xildhibaanada ayaa sidoo kale helay aaladii labaad ee ku jirtay baabuurka dilaaga, waxayna geeyeen gurigooda. Wuxuu ka shakiyey in aaladan ay tahay wax muhiim ah, markaasuu bilaabay inuu baaro, isagoo markiiba ogaaday sirtan qarsoon. Markii uu Kim Jong u yimid inuu raadiyo, xildhibaanka ayaa mindi ku dhuftay. Tani waxay ahayd aalad mucjiso ah. Wax kasta oo aad rabto ayaad ku samayn kartaa, iyadoo ka awood badan qalinkii sixirka ahaa. Laakiin xildhibaanka wuxuu isweydiinayay nidaamka ay aaladani u shaqayso. Miyuu hadda ku noolaa duni sixir ah? Markii uu arkay in Kim Jong uu diiday inuu hadlo, xildhibaanka ayaa garaacay. Kadib markii si xun loo garaacay, Kim Jong wuxuu ugu dambayn ku dhawaaqay laba erey, isbitaalka. Xildhibaanka ayaa hadda fahmay awoodda aaladda. Kim Jong wuxuu sheegay inuu aaladda u baahan yahay si uu u badbaadiyo xaaskiisa dhimatay. Wuxuu sheegay in qofka aaladda leh uu joogo isbitaalka. Inta la heli karo qofka soo kicinaya qof kale, xildhibaanka waxay u muuqatay wax aan macquul ahayn. Xildhibaanka inkasta oo uu shakisanaa, haddana aad buu u walaacsanaa. Wuxuu ku amray raggii u shaqaynayay inay xaqiijiyaan dhimashada Yanji, kadibna wuxuu aaladii tabletka u geeyey isbitaalka isagoo raacaya tilmaamihii Kim Jong si uu u helo qoraa Saahoon. Markii uu xildhibaanka ka baxay dhismaha, ereyadii la soco ayaa mar kale soo muuqday. Kim Jong oo ahaa kii xirnaa ayaa si lama filaan ah u dhumay, wuxuuna dib ugu laabtay dunida dhabta ah. Isla mar ahaantaas, ardaygii Saahoon oo sugayay ayaa arkay cutubkii ugu dambeeyey ee buugga. Kim Jong wuxuu u soo dirayay calaamad isaga iyo qoraaga, isagoo ku amray inay isbitaalka tagaan si ay u soo ceshadaan looxii sawirka. Maadaama uu Kim Jong hadda ahaa qof dhab ah oo awood leh, wuxuu awooday inuu u yeero jilayaasha buugga dhexdiisa ku jira. Kim Jong wuxuu go'aansaday inuu xildhibaanka uu u yeero dunida dhabta ah. Intii ay taasi dhacaysay, jawigii ku xeernaa xildhibaanka ayaa isbedelay, wuxuuna si lama filaan ah u arkay qoraagii isaga sameeyey. Ka hor inta uusan fahmin waxa dhacaya, Saahoon ayaa si degdeg ah uga dafay looxii sawirka. Qoraaga ayaa markaas ku dhuftay xildhibaanka usha faleebada si uu u miyir beeliyo, kadibna wuxuu si degdeg ah u shiday looxii si uu gabadhiisa dib ugu soo kiciyo sheekada dhexdeeda. Sidaas ayay Yanji mucjiso ugu soo kacday. Ereyadii la soco ayaa soo muuqday, Yanjina waxay si nabad ah ugu soo laabatay dunida dhabta ah. Laakiin xilli ay Kim Jong bannaanka hoteelka ku sugaysay, waxay aragtay xoghayntii, isla markaana waxaa si lama filaan ah u soo baxay ereyadii cutubka u dambeeyey. Waxay mar kale dib ugu laabatay dunidii buugga. Isla mar ahaantaas, gacmihii qoraaga ayaa noqday kuwa aan la arki karin, waayo sheekadu waxay furatay dhammaadkeedii dhabta ahaa. Maadaama miirkii Kim Jong uu u soo gudbay dunida dhabta ah, waxay khalkhal gelisay sharciga isu dheelitirka tamarta, taas oo keentay inay dadka dunida dhabta ah bixiyaan qiimaha. Saddexdii qof ee ugu muhiimsanaa dunida dhabta ah ayaa lagu dhex milay dunidii buugga. Qoraaga ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee galay dunida buugga, halkaas oo miirkii dilaaga uu ku sii xoogaystay, qoraagiina uu noqday mid la maamulo oo leh laba shakhsiyadood oo isku dhex jirta. Kadib markii uu sanad ku qaatay isbitaalka dhimirka ee sheekada dhexdeeda, qoraagu wuxuu u muuqday mid u eg dilaagii, wuxuuna noqday mid ka mid ah jilayaasha buugga. Maadaama dilaagu uu dhowaan dhumaayay, wuxuu dilay kalkaaliye caafimaad si uu uga badbaado inuu dhaqso u dhumo. Intii uusan buugga gelin, qoraagu wuxuu sawiray xafiiskiisii iyo looxii sawirka. Markii uu isbitaalka ka baxsadayna, wuxuu ku dhuuntay xafiiskaas isagoo isxirxiray si uusan naftiisa u xakamayn waayin, isagoo sugayay Kim Jong iyo Yanji. Qofka labaad ee galay dunida buugga wuxuu ahaa Kim Jong. Wuxuu si lama filaan ah ula kulmay xildhibaankii oo ku soo tuuray rug caafimaad horteeda, kadibna waxaa loo qaaday gurmad degdeg ah. Sababtoo ah Kim Jong wuxuu horay u matalay dhimashadiisa, waxaa lagu qasbay inuu xabsiga galo. Markii ay Yanji soo daahdayna, waxaa lagu xukumay dhimasho. Si kasta ha ahaatee, isagu wuxuu u muuqday mid degan, sidii in dhimashadu aysan waxba u ahayn. Maadaama ay sheekadu dhammaad ku dhoweyd, ma jirin cutubyo cusub, cidna uma laaban karin dunida dhabta ah ilaa wax kasta la soo afjaro. Isla xilligaas, waxaa si lama filaan ah u soo muuqday furihii
katiinada iyo qori ku jira gacanta Kamjun. Wuxuu gartay in qoraaga uu ka caawinayo inuu xabsiga ka baxsado. Kadib markii uu baxsashadii ku guuleystay, wuxuu Yanji kula kulmay xafiiskii qoraaga sidii qorshuhu u ahaa. Intii ay Yanji cunto karinaysay, qoraaga ayaa Kamjun u sheegay waxyaabo qarsoon. Inkasta oo uu isagu uu sameeyey, haddana marnaba ma wada jiri karaan isaga iyo dhammaadka farxadda leh ee Kamjun. Miyirka dilaaga ayaa hadda qabsaday qaybta midig ee jirka qoraaga. Si kale haddii loo dhigo, isagu wuxuu hadda ahaa dilaagii laftiisa. Maalin kasta oo uu sii noolaado waxay khatar hor leh ku ahayd nolosha Kamjun iyo Yanji. Xataa haddii uu usoo laabto dunida dhabta ah, Sahon marnaba ma noqon karo qofkii uu horay u ahaan jiray. Dilaagu wuxuu isticmaalay gacmaha Sahon si uu dembiye u galo, si uu u burburiyo wax kasta. Shakhsiyadda qoraaga ayaa hadda ka naxariis darro badnayd sidii hore. Waxaa intaas dheer in sheekada dhexdeeda uu ku haray hal shar wade oo loo baahnaa in la iska qabto, waana xildhibaanka. Doorashada guud ee dalku markay soo dhowaatay, xildhibaanku wuxuu warbaahinta horteeda ka dhigayay bandhig naxariis iyo karti leh. Markii uu ogaaday in Kamjun uu xabsiga ka baxsaday, xanaaq ayuu la qarxay, wuxuuna si toos ah u afduubtay ilaaladii gaarka ahayd ee Kamjun, isagoo garaacis ku dilay goobta. Xildhibaanku wuxuu qaatay taleefankii ilaalada, wuxuuna fariin u diray Kamjun isagoo u sheegaya in saaxiibkiisa la haysto. Kamjun oo aad u walaacsan ayaa banaanka u orday si uu usoo waco xildhibaanka, laakiin markii uu qolka ku soo laabtay, wuxuu arkay muuqaal naxdin leh, qoraagii oo si waali ah u ceejinaya Yanji. Shaki kuma jirin in miyirkii dilaaga uu mar kale la wareegay Sahon. Kamjun oo aan wax kale samayn karin ayaa ku qasbanaaday inuu Sahon mar kale sariirta ku xiro. Markii uu Sahon soo miyirsaday ee uu arkay nabarrada ku yaala qoorta gabadhiisa, wadnaha ayaa dilaacay. Inkasta oo aysan hadlin, Sahon wuxuu garanayay waxa uu gacmihiisa ku sameeyey. Maadaama uu Sahon uu dilay kalkaaliso caafimaad, booliska ayaa hadda ku soo raad joogay. Hadda masiirku wuxuu taagnaa meel adag. Haddii Sahon uusan dembi gelin, wuu dhumayaa. Inta u dhaxaysa Kamjun iyo Sahon waa in midkood uu badbaado ama labaduba ay dhumaan. Isla xilligaas, booliska ayaa hareereeyay gurigii ay ku jireen. Yanji waxay sawirtay guriga sidii meel xiran oo aan marin lahayn si ay wakhtiga uga faa'iidaysto. Kamjun ayaa Yanji u horseeday albaabka dambe, wuxuuna ka siibay faraantigii arooska. Wuxuu u sheegay, haddii aadan ka mid ahayn qoyskayga sida sharciga sheekada ah, natiijo kasta oo dhacda, dilaagu kuma beegsan doono. Kadib markii uu Yanji geeyey meel ammaan ah, Kamjun wuxuu u orday inuu badbaadiyo ilaaladiisii. Wuxuu hor istaagay xildhibaankii isagoo gacanta ku haya falaashkii ay ku jireen muuqaalo muujinaya dembiyada iyo falalka sharci darrada ah ee xildhibaanka. Kamjun wuxuu ugu digay inuusan taaban dadka uu jecel yahay haddii uu rabo inuu badbaadiyo sumcaddiisa iyo hantidiisa. Laakiin xildhibaanka ayaa ka sii naxariis darnaaday sidii la filayay. Wuxuu si toos ah u toogtay Kamjun. Xildhibaanka muhiim uma ahayn doorashada ee wuxuu rabay inuu ogaado sirtii dunida kale. Kamjun wuxuu u dagaalamay si nafhurnimo ah. Intii uu baabuur ku baxsanayay, shidaalkii ayaa ka dhammaaday. Isagoo tabardaran ayuu Yanji soo wacay. Yanjina si degdeg ah ayay u sawirtay baabuur cusub si ay u raadiso Kamjun, iyadoo la tartamaysa wakhtiga iyo masiirka sheekada. Kamjun jirkiisa oo dhan nabar ayaa qariyey, wuxuuna bilaabay inuu dhiig matago. Yanji waxay ku jirtay jidka ay ugu imaan lahayd, iyadoo aad u naxsan oo magaciisa ku qaylinaysa, laakiin wakhtiga ayaa ka dhammaanayay. Daqiiqadii ugu dambaysay, Kamjun miyirka ayuu lumiyey oo dhulka ayuu ku dhacay. Ka hor intaysan Yanji soo gaarin, waxay si lama filaan ah ugu soo laabatay dunida dhabta ah. Buuggii wuxuu ku dhammaaday dhimashada Kamjun. Yanji faraantigii arooska iyo looxii sawirka ee aabaheeda way dhumisay. Iyada iyo ardaygii aabaheeda waxay daabaceen waraaqo badan oo dadka lagu raadinayo si ay u helaan aabaheed Sahon, laakiin raadkiisa waa la waayey. Isbeddelka masiirka inkasta oo ay u muuqatay dhammaad naxdin leh, haddana wax kasta waa la rogay. Inkasta oo buuggu dhammaaday, dunidii buugga dhexdiisa ka jirtay ma istaagin. Sahon oo maqlay in Kamjun la toogtay ayaa go'aansaday inuu naftiisa u huro gabadhiisa darteeda. Sahon wuxuu sawiray dhammaadka xildhibaanka. Wuxuu daabacay warqad macsalaameyn ah iyo muuqaalo muujinaya dembiyadiisii. Falaashkii iyo cadaymihii uu Sahon diyaariyey waxay nadiifiyeen magaca Kamjun. Sahon wuxuu jebiyey sharcigii dilaaga, wuxuuna u qoray Kamjun dhammaad farxad leh. Isagoo ka fog ayuu gabadhiisa Yanji ka daawaday markii ugu dambaysay, kadibna wuu dhumay maadaama uu ahaa kii xumaanta u matalayay sheekada. Noloshii cusbayd ee dunida dhabta ah, Kamjun kuma dhimanin. Kadib markii gurmad caafimaad loo sameeyey, magaciisiina la sifeeyey, wuxuu ku qasbanaaday inuu 2 sano oo xabsi ah u adeego dembiyadii yaryaraa ee baxsashada iyo qorisifayn la'aanta ahaa. Intii uu xabsiga ku jiray, Sahon wuxuu u reebay sawir iyo warqad. Sahon wuxuu noqday jilaaga dhabta ah ee dunida buugga ku haray, isagoo naftiisa ku dhex dhumiyey sawiradiisa, halka Kamjun uu ka soo baxay dunidii khayaaliga ahayd. 2 sano kadib, Kamjun waa la soo daayey, wuxuuna u soo gudbay dunida dhabta ah si uu ula noolaado Yanji. Dhammaadka sheekada, Kamjun wuxuu Yanji siiyey sawirkii aabaheeda, mana uusan dhihin wax ka badan intaas. Labadoodu waxay noqdeen lamaane caadi ah, iyagoo bilaabay inay ku noolaadaan nolol dhab ah oo ka madax bannaan qalinka qoraaga iyo masiirkii hore ee buugga. Halkan ayay sheekadu ku dhammaanaysaa. Muuqaalka like saar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka, subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.